looking very happy to be here as well. But I think the thing that's important in illustrating the story of this one particular migrant is it shows. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channel كذا داور طبعا وهو reaction channel. هذه أدي قصة طول على subscribe تيسار like تنا يسار. هذه الهرا يلو شو على منها سند طبعا كسر علي أريجا. هل كم ما أنتوا حنوصل فريستا واللي بانيجو مشغولة. هذا نوع حاسب بالفيديو يرد بس كتب مانتا. برنامج كوسا بسيا مانتا نين صوماليات وكيابي عالمك دي تيفيدا عالمك بي سي دا يعني جورنالada ninka Soomaaliyeed oo baraha bulshada lagu hadalhayo 24 saacadood u dambeeyay shalay la maanta ninkaasi wuxuu sameeyay kale inta aragta intii aan aragda waan ka dabageynaya ma maqlajto qofkaas isaga gacantiisa isku soo qarxiyay qofka hebel waa la soo qarxiyay hadaba ninkan isaga soo qarxiyay wax kale isku soo qarxiyay muu sameeyeen inkaas tahriib wuxuu ahaa nin tahriibe ah oo ka soo tahriibay Soomaaliya dabcan wuxuu soo maray wadamo fara badan sida Algeria sida wadamo fara badan aan sheegi karin barta ka qiyaasi karin oo Afrika kala bar uu soo maray Yurubna half buu maray hadaba ninka ku dambeeyay ninka wuxuu ku dambeeyay wadanka UK hadaba telefishinadii wadanka UK idaacadihii wadanka UK ninkaas hadal hayaan ninkaas dabcan markuu tahriibay wuxuu soo duubay isagoo tahriibku ku guda jira mar kastaba uu soo duubayay step by step halkan baan maraya halkan baan caawo seexan halkan baan caawo joogna wixii inta laga soo daba keenay oo la soo qaatay ba TV-ga caalamka laga soo daayay. He gets on a small boat. Let's take a look at this bit of video. There with accompanying music is our Somali migrant on that small boat making his way to the UK. Does he make it? Yes, he does. Here is him and a friend outside his new hotel. Looking very happy to be here as well. But I think the thing that's important in illustrating the story of this one particular migrant is it shows you the number of countries, so many different countries this migrant passed through on his way from Somalia to the UK. Not one of those countries was this young man stopped, detained, turned back. He just continued through country after country after country until he got to the northern coast of France and onto that small boat. Mark White, people watching this. nimankii telefishinka waa qosle waxay dhaheen waaba habiba inuu halka yimaado habi ku yahay waxay sheegeen wadamo badan inuu soo maray inuu Yurub soo maray inuu Yurub doon ka soo raacay Ingiriiska tagay waxa dhan waxay leeyihiin gaalada iyaga iska ogaatay Soomaaliun baa u geysay Soomaali baa geysay dabcan ama dabcan Soomaali qorayaan dhihina waxa jira dad badan oo TikTok-yada ku xiran in jiro daawado cadaan dabcan laakiinse kulba wili wala jaajusay laakiin isaga isugu wacano maanta isaga baxar ku jira wiilkaas anu kale waxa lu maleynayaa in UK weydiin doonto shil magangali weydiistay ninkana madalxiisaada hayd ninkana madalxiisu ahaa ma waxa la tahriibe ma magaliyo doon baad ahayd sababta sida qofka dalxiisaha u dhaqmaye inta soo wadan soo maray waxa soo lacag haysta yes ya lacag inta leeg balas weydiinaya midda kale haduu magaliyo doonayo Yurub oo dhan uu soo maray Faransiisku soo maray Italy uu soo maray wadamo kale soo maray oo Yurub kamid ah fara badan haduu magaliyo doonayo wadan kamid ah wadamada mu joogo Ingiriiska maxaa hadina geeyay oo doonigu raacay والله أنا أقول كاس تام برها بالشدة اللي صور دقيقة أنا قارضة كسو هاللي بند داون شري وابن نحب شري من ذكر استيب ولا سعدان با هوتيل بوشوغي وكنا هل كان بدون صور راعي هل كان كلو صومري هل كان كلو صومري أنا واحد كرا ويل كسؤال بدن بهري هلا هدي أيام كمان سؤالها اللي ويدين بقى من قال يدل متى دلعيس هتودنا كذا وكنا وحنا بقى عندي بلوتر حيرو
marka waxaan kula talinayaa Soomaalida tahriibaysa hadda walaal tahriibaysa soo duubin ila wadankaaga waxaad uga timi faqrinimo gaajo rafaad inkastoo dabcan dee qof lacag haysta wadankii dee lacag ku tahriibay haysta wadankii inuu ganacsi ka furtaa wala qaad hadda tahriibayso tahriib ku qorshaysan yahay aad wadamo badan maraysid fadlan walaal TikTok iska soo duubin waxaaga hoos u wado waxaaga hoos ula dhuumo hadda xilligan la joogo baraha bulshada waxba lama soo dhigo halkaad maraysid halkaad socotid way naftaada halis gelinaysa wadankaaga maxaad uga timi wadankaaga soo ugumaadana magageliyo doonato inaad hesho noloshii hore ka bedelan way isku soo qarxinaysaa way leeyahay kan marayay tahriib baan hay arkay maqla hadhow aan trafiigu maxaad isku dhiibi doontaa waxaaga hore baraha bulshada yaala soo ma horta wiilkaas iskoor ku xujibiyay iskoor buu jibiyay wiilka ilaa iyo la soo qaatay kaaga daran iska qoslayaaba heesti baa iga daran ba ka dhabe hankii aan laha deli wali way heestaas waxa ka baqaya qofkii isku duubay la dhaho uu tahriibayay la soo jaajuusan ka baqaya heesti uu dul saaray kaaga daran cadaanka ugu qoslay waxa dhaho ya halkaas u taagna hotelka mu yimi hees buu isdul saaray Soomaali music buu isdul saaray wallahi qosolka ka dhamaada xal marka arkay qosolka say ka dhamaada waxaan diray walaalayaalo Soomaaliye kullu tahriib deemayne gaadiid iyo guurguur deemayne inaan guurguurne walaalayaalo ayar socda dadkan cadaanka isku dirina in wadankii kugu soo horeeyay Ilaahay ku keenan amniyana iska dhib wax aad maanta dhan Yurub oo dhan ugu meeraysto wadan midna abaha malaha hooyada malaha kii kugu soo horeeyay bariiskaagu yaalo gal aad baan idin salaamaya arrinkaas aad iga